السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا مقعيقة هني آدم بورتان قبر سوماليات كنا مقالة قردو وحناي قبر سوماليات وحناي هوية لبن nolosha يعني فارستيدي yaraanteedii si farxad leh iyo waalid ku soo dhax koray anoo 15 jira baa waxaan guursaday wiil Soomaaliyeed runaantii aqliguna iguma filayn guurkaas guur si qaldan aan galay buu ahaa laygu daray qof walbana yani nolosha uu galayo wuxuu u maleynayaa inay wax iskaga bedelayaan laakiin aniga waxba iskaga ma kay bedelin waxay ahayd maalintii ugu horeysay umrugadeedu ay bilaabanaysay wiilka waan isguursanay si xalaala waalidkiis og yihiin ilaahay wuxuu kala siiyay awlaad waxaan u dhalay wiilku waa nin reer Puntland oo oday caan ah u dhalay Maxamuud Shido wiilkii waxaan u dhalay ilmo yar ilmihii yaraa anu intaanan dhalin on xaamilada ahaa aad nin markii horeba noloshiisa servicekiisa iga qarsaneed bay ahayd oo macnihii caqabado kala duwan wata balobareem xagga familkiisa isaga ay geysteen baa loo xiray xarigiisa aniga balobareemkii igu dhashay anoo yar oo da yar oo markii horeba guur bade aan maskax aan ku wado iyo midna aan lahayn murugadii igu dhalisay waxaan ahaa qof la nool 9 bilood oo ilmaheeda caloosha ay ku waday waxaan la noolaa ilin iyo murugo igu soo zaa'iday dan habeenada kamida dhiigii baa igu booday taasoo aan u mutaystay xaalad qaliina oo ilmaha yarkaan operation ku galay dan operationkii alxamdulillah waan ka noolaaday ilmahayga yaraana wuu nabad dhashay waxa dhacday anagu 40 ku jirnaba inaan wiilkii kala tagnay isagoo kale maskaxdiisu soo siisay inuu sidaan ugu sii daayo murugo kale igu sii noqotay ilmahayga yaraa waan iska korsaday waan haystay mar dhexe ayaa waxa igu dhalatay in aan ilmihii yaraa aan reerkiisa siiyo si aan wax u qabsado wiilkayga yarka reerkii baan siiyay dan dhowr bilood baan ka maqnaa dhowr bilood kadib waxaan u soo laabtay wiilkaygiiyo dhaawacyo fara badan ku yaalaan oo gabar eedadiisa ay dab u geysatay gugubtay mid adeerkiisana uu jirdil badan ku sameeyay runaantii hooyaanahay habeenkii aan wiilkayga u soo hoydo aan u imaaday aad baan ula xanuunsaday dan waliba xanuunkaas igu dhaliyay inaan macnihii gaaru ooygii inaan ooyo ay igu dhalisay inay qandha igu qabatay habeenkii qandha igu soo booday qandhadayda iyo xanuunkaygana familka markaas wiilkayga hayay ama sala noolaa ay ma garanaysaay ila fahmeen oo hadday muuqaalkayga daawadaan ay dib u xasuusan karaan laakiin anigu aanan u sheegin qandhadan waxay ugu qabatay kaliya ay u maleeyeen xanuun iska ka qabtay laakiin aniga qandhadu ay ugu qabatay murugadii aan wiilkayga yarka la murugooday waa dareemi kartaa hooyo ilmaheedii ooynayo dhaawacyo kala duwan tusayo xanuunka ay dareemi karto dan anoon waxba iga dambeeynin og inaanan ilmahayga ku filayn ayaan go'aan waxaan u qaatay inaan wiilkayga la duubtoon haysto wiilkayga waan soo kaxaystay waan iska haystay haddaan haystay wiilkayga hadar waa nin weyn oo barbaara heer waxbarasho gaaray waxa dhacday inaan odaygii awowiisa maadaama meel aan kalo aan oola miciina aanan haysanin inaan odaygii awowiisa dib ugu noqdo aan ka codsan inay waxbarashadiisii iyo caafimaadkiisii uu meel iga saar sababtoo ah nolosha wax walba waa macnihii deyn xagga bariiska horta meel walba lagu nool yahay laga cunaa laakiin caafimaadka iyo waxbarashadu deyn ma gasho waa wax aad miiska saaraysid odayga waxaan ka codsaday Maxamuud Shido gurigiisaan ugu tagay garow waan ugu tagay waxaan ku yiri adeerow wiilka yarka anigu waxaan haya malaha ma shaqeeyo gabar daayar baan ahay reerkaygu iska reer danyara wiilka yaraa kuma fili aabihiisna inuu dhalay in kalaba xitaa xiriir waalidnimo ma uu sameeyo waxaan ka codsanayaa inaad wiilka yarka aad fiigiisa iyo caafimaadkiisa meel iga saartid dan adigu gorgortan buu ila galay wuxuu yiri wiilka fiigiisu waa intee waxaan ku yiri wiilku iskoolka 15 buu ku dhigtaa dugsiguna waa 10 macabaski iyo wixii dhan adigu bishii $50 wiilka yarka adeero meel u saar intii aan anigu bal
وحقون إلهي فرج خير قبعي غفريه dan wuxuu igu yiri muddo sanada baan $50 ka haynaya wixii ka dambeeyay wiilkaaga u tasho hayo baan ku yiri raali baan ku noqday waan ka soo tagay waxay ahayd sanadkii 2019 bishii ugu dambeysay 12aad bishii koowaad baan khabaar ka sugayna war soo celin ah laakiin wax war nagu soo celiya malaha teleefankiisa waan wacnay meel walba waan u marnay wax jawaabo waan ka weynay aad baan u niyad dilmay aad baan u murugooday aad baan in badan u ooyay noloshayda ilaa maalinka reerka ku biiray ilaa yawmi hada maanan helin aniga wax farxad ah habeenkaanan ilinku seexanin waa habeen dhif ah oo aan wax kale aan isku biisi gareeyo shakhsi kale aan u cawdo aan ilaahay ahayna ma u jiro qof la cawdana ilaahay baa ugu wanaagsan waxa dhacday sidii haddaan qabaar uga weynay hooyaan la tashtay anoo ilmahayga yarkaa jecel hooyo walba ilmaha ugu horeeya si gaaray u jeceshahay oo yaraan ku dhalay oo jecel oo haysto intaas oo sanana soo haystay baan haddana waxaan dhihi jiray anuu maxamed kuma fili waa gudbinaya laakiin hooyaday mar walba niyadda ii dhisi jirtay waxay jirtay ilmahaaga yarka ayuusan ka dhumin ha iska dhiibin hayso aniga insha Allah faraj khayr qaba ilaahay furaya meel baan ku habeynaya waxba isugu ka toosinaya dan anigu awal waxaan ahaa qof hooyadeed iyo aabaheed iyo waalidkeeda ku dhex jirta alxamdulillaah rabbil caalamiin aabahay ilaahay naxariista jannasiyo 8 Maarso 2020 bishii Maarso dhintay magaalada Muqdisho ku dhintay anigu aslanba ma ahi qof u dhalatay gobolada Puntland anigu waxaan ahay gabar reer koonfura laakiin hooyadayba ah faamiladan qardha degan soo anigu qardhan inta ku leekaaday Muqdisho anoo ilmo yar oo dhashay waa laga keenay laakiin adduunka qof walba garab uu buu helaa adduunka horta way jirtaa imtixaanku wuu jiraa qof walba meel buu ka imtixaamaya laakiin qof walba waxa hay wuxuu uga gudbi karaa inuu garab helo alxamdulillah abaha ilaahay baa iga kaxaystay hooyaday rajadeedii kamaysan hoos dhigin waxba isugu kay aadisay dukaan yar oo macbile ii sameysay wuxuu ugu tiri adduunka wax yar baa laga bilaabaa wax weynna waa lagu gaaraa ilmahaaga yarka ha iska tuurin shaqayso okay sidii baa niyadda iigu dhisnayd oon waxay igu abaabushay alxamdulillah rabbil caalamiin anoo niyaddeedii iska kaysoo kamayso oo meel kale aanan $1 aysan iiga soo dhicin oo ma garanaysaa wallahi ku duceysta beenku ma sheegayo wallahi waxa ku duceysta inuusan aniga xanuun ii yimaado kama boqo laakiin waxa ku duceysta inuusan ilmaha yarka iga xanuunsanin because hooyo wax ka urug badan ma jirto hooyo ilmaheeda xanuunsan dhakhtar u weysay waana waxaadan keeni karin waa ka duceysta in badan waxa ka duceysta inuusan ilmaha yar ilaahay uusan xanuun iiga keenin dan in badan anigu waxaan maanta sheegayo oo wax qalbigayga aan ka sheegayo oo waxa aan anigu qalbigayga ku qarinayay qofka ibn aadankaana haduu dhinto waa laga samraa waana la aasar laakiin qofku haduu si qalbiyana u dhinto run ahaantii qof dhintay waa la arki jiraa laakiin waxaad noqonaysaa qof nool oo dhintay yani waana nolol meesha ugu xun soo anigu dhowr jeer xitaa maskaxdayda ay siisay markaan aad u fakiray inaan nolosha is dhaafiyo daraasta noloshayda micnihi fakarka ugu dambeeyo aan gaaro ugu xumaa taasoo ahaa waxaan intaas ku soo gaaray oo aanan dhibna isugu geysan ilmaha yarna aanan dhib ugu geysan waxay ahayd inaan ahaa shakhsi markeeda horeba diin baratay alxamdulillah rabbil caalamiin ogna inuu adduunku imtixaan yahay mar walbana naftayda waxaan ku qancin jiray qof walba inuu imtixaan marayo laakiin uu ka gudbayo so insha Allah bidnillahi alkarim waxa dhacday marka qisadeedii halka haday mareysay oo waxaan isku abaabushay masiibadii 5tii bishii Ramadaan magaalada Qarlood ku dhacday dadka ay ku dhacday oo waliba ugu saameynta badnaa baan kamid ahaa alxamdulillah rabbil caalamiin gurigi waa iga dumay agabkii ii dhaxyal waa iga qoyeen waxaan kala baxay naftayda iyo labada shay oo aan xirnaayo iyagu baqoyana waxa dhacday aniga babygeygii iyo hooyo waayeen meeshii habeenkii ilaahay baa nafteena nooga saaray sidii bay wixii nooga qoyeen dad aan qaraabanahay oo isna qaanaban sidii korsaar ugu nahay maanta muddo bil abad ka soo wareegtay masiibadaasi markay dhacday dad badan oo waxaan arkay gurmad kala duwan oo badan baa soo gaaray magaalada Qardhood waxa lagu qaybsanayaa inay hebel anigu cid inay hebel idhahaysa ma jirto albaab maanta Qardho ku yaalo aan lagu garaacin oo si ilaahay dirti u garaacmaya ama wax lagu qabanayna ma uu jiro magaalada Qardhood inay hebel wax la sugu qabanay anigu inay hebelna ma ahi inay hebelna garab ima siinayo ima u wado
سأوجد أنا مدبلة مع مانتي يا كبضن بان رير إسلامي الحكو كرسار تاجنا صداو مهرد دي ساسي وبربرتي مانتا نص دولار عن مانتا وحن أبى هذا كوجا تما هيستو رير كاس بريس كان لقنا الحمد لله رب العالمين يجنا أجر الله كسيه بكوس مانتا يقفد كسوح ريبة وقفد يسوي بحوجا كوجي حسان وأمين سنهاي midda awgeed anigu maanta waxaan aaminsanahay haddii aan qarno u dhalannahay inaysan dhibaato badan igu dhex qabsateen inaanan bil aanan korsaar ahaadeen inaanan sidan u ekaadeen maqnii dhibaatada ugu weyn oo haysata waxay tahay aniga gacan bidixayn waxaan u taagnaa guryaha aagayga oo masiibada igula dhacday oo kaarar lacaga loo qaybinayo oo raashin loo qaybinayo oo agab loo qaybinayo anigana aan guriga igu dumay aan subax walba ka soo wardoonay muddo bil iyo dheeraada baan subax walba soo jarmaada oo guriga imaada laakiin anoo niyad jabsan baan ka noqdaa bal iska wadaay subaxa kamid intaan imi wixii markay ii qalmi waayeen wixii xaafada ka socday oo aniga aan arkay inay eegi waayeen dareenkaygu isbedelay والله بين إننا إني شيء أنا قدرنا وضع جرينا يا عاد مدة إنه مرة العادي عن كقاعدة بنقولي سكجنا صوته تذكر ماشي يميل دبعته دقارتي إنه هبل وبالا لا سو أنا قوي إنه هبل إنه هاي متشرو قرمت كمان تقدر سو قارنا وح إنه هبل لو سو ديبا مو هين وح إنه هبل سو ديبا نما سنين وح مصر الإلهي أو أدونك إلهي كودات صار أو مصيبة ولا الله تكون هبسة تكون عضي ساكعين أو كصدرن هاي أو سو ديبا بهاي أنا وما تقف شعب أنا هاي 23 سنة كجرتا أما 24 سي جلسة ما هي قف عريانة ما هي قف عذر قبت لكن وحنا هاي قف أباهن عن قبش أنا باهنا هاي عن قبش أنا باهنا هاي because أنا ديار وأنا حكسده ولا له الصوماليات ما أنت توحن لايف كاس أصول قلي إلى ما هي قبش الصوماليات وما أنت تان دبنين إني ولي أنا إن بدن سكتشي ده أنا ما أنت سيجسوا جدا inta waxa iiga soo jeedaa inaan hadlo baan ku qancay oo dadka Soomaaliyeed ee afarta adduunkaas ku kala daadsan dal iyo dibadba joogaan dareenkayga la wadaago dhibaatadeeda aanan qarsanin because aniga muddo hadda 8 sano ah murugadan way haysatay noloshayda barkeeda anigu farxad maanan arag soo ciyaalnimada haddaan ka soo baxayba nolol muruga labaan iska galay maantana waan ku noolahay waxaanan jeclahay inaan u noolaado sidii gabdhaha facayo kale ama soo hooyooyinka ila midka oo daada yar aan shaqaysto ilmahayga aan korso ilmahayga waan jeclahay hooyo ilmaheeda u tuuraysa ciyaar ma jirto marka waxaan idinka codsanayaa walaalahayga Soomaaliyeed ee diinta islaamka na walaalaysay ee ma garanaysaa intii luqadayda fahmaysa inay dibkayga igala qayb qaadato inay hoos ii fiiriso adduunkan waxaad maanta isid birimaysid qof walbana markuu dhinto wuxuu u baahan yahay wuxuu helayaa wuxuu hore u baxsaday adduunkan qof walba karfan buu kala tagayaa xoolaha aad maanta isid waa wax lagu dhiibay dadka ka hooseeya inaad hoos u fiirisid waa wax aad inaad walaalahaaga dhiban gadaal u fiirisid waxaan doonayaa walaalahayga Soomaalida inay gadaal ii fiiriyaan aniga caqabadooyinka ugu waaweyn oo haystaan waxay tahay qofka aniga i garanaya ama se aan dibkayga u soo bandhigo inuu ba idhahayo wiilkaaga ina maxamuud daawo wiilkaaga see wax u waay maxamuud daawo u yahay uradkiisa ana dhalay kii dhalayba aabanimo uma yaqaan mana soo xiriiriyo soo inaan aniga shakhsi ugu fiirisan adinka intaas aaminsan xitaa oo ina maxamuud noo saarinaya xitaa ma ahan qofka ina niyada ka dishaan xitaa qofka dad waxba u qaban karin xitaa ina wada u furtid inaan service si uu garanaysaay codkiisa banaan ku soo dhigaad u sameeysid baa wanaagsan walaalahay intaas waxa ku soo koobay aniga dhibkii soo gaaray mar koowaad mar labaad mar saddexaadba inaad dhinac walba dareenkayga u fiirsan inaad insha Allah bidnillaahi alkariim isoo jawaabtaan baan rajaynayaa bidnillaahi alkariim ilaahay ajr iyo xasanaad ha idinka siiyo qof walbana wuxuu jecel yahay ilaahay ha siiyo anigana insha Allah bidnillaahi alkariim oo guuleysanaya adduunku waa maalmo kooban